maanta sidaas uu wasiir xasan sheegay waa maalin weyn oo runtii aad iyo aad maalin farxadeed aweeye waa maalin loo fadhiyo in la xuso imaamka weyn ee sheekh cabdilqaadir aljilaani ama alkaylaani labadaba aad iyo aad baan ayaan ugu faraxsannahay waa xus aan inagu cusbayn haddaan nahay ummadda soomaaliyeed waa xus taariikhda ummadda soomaaliyeed qeyb weyn ka ah waa xus culimmadeennii ay muddo dheer runtii ay soo hayeen ay ku tarbiyeeyeen dadkeenna bareen marka waa maalin runtii aad u weyn oo maalin qiimo badan oo dadkeennu isu imaado ayagoo xusaya ku dayeenaya ka sheekeynaya siiradii imaamkaas weyn ee qiimaha badnaa raxmatullaahi calayh الشيخ عبد القادر الجيلاني أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسين الهاشمي حوها شيخ runtii karaamaysan sida la sheegay haashimiya ku abtirsada beydkii nabiga calayhi salaatu wassalaam aalu beyd ah ayuu ahaa wuxuu markii la xusayo shakhsiyad muslim ah oo nooca sheekh cabdilqaadir oo kale ah ujeedka laga leeyahay waa la caddeeyey sheekh cabdilqaadir albaqdaadi baa si fiican u fasiray culimmaduna waa sheegeen ujeedku waxaa weeye in loo duceeyo in la karaameeyo iyo midda muhiimka ah in lagu daysado oo wixii uu qabtay sidii uu sameeyey si uu ilaahay uga cabsan jiray si uu u karaamaysnaa sidii uu u cibaadaysan jiray si uu u tawaaduci jiray si uu zaahid u ahaa si uu u akhlaaq badnaa si uu dadka adiyadda uusan in dadka kale qofna qof dhiba uusan u ogolayn si uu u diidi jiray in dadka muslimiinta ay dhexdooda wax iska sheegaan si uu sadrigiisu waasica u ahaa u aqbali jiray dadka laga yaabo inay ama madhab ahaan ka bedelan yihiin ama aragti ahaan ka bedelan yihiin siduu jiilka usoo tarbiyeyn jiray siduu humuumta ummadda muslimiinta ah ay maskaxdiisa ugu jirtay oo ay ugu weyneyd in baytulmaqdis laga xoreeyo saliibiyiinta imaamkaas waxyaabahaan rabna in marka aynu fiirino waxaa ka mid a sida uu u ahaa mutasaamix wuxuu ahaa oo lagu sifeeyaa inuu yahay sheekhii labada madhab lahaayo madhab marna xambeliga ahaa marna shaaficiga ahaa waxay ku tusinaysaa madhabnimada fiqiga ah sida uu u aaminsanaa iyo sida ay asaga la ahayn inaysan ahayn wax dadku isku nacaan wax la isku karaahaysto wax la isku dhibo midna inaysan ahayn inay tahay turaad islaami ah oo ay tahay in laga faa'iidaysto oo aysan waxba dhib lahayn inaan marna aan ahaado shaafici xambeli ahaado xanafi ahaado wax mushkilo ay leedahay inaysan jirin isagu marka waxaa la yidhaahdaa sheekh cabdilqaadir ama suldaan alawliyaa imaam suufi wa faqiih xambali shaafici buu ahaa baa la yidhahdaa ibnu taymiya sida la sheegay wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa acdam mashaayikh zamanihim markii uu asagu jireen shuyuukhda ugu qiimaha badan ee ugu waaweyn inuu ahaa oo ugu wanaagsan dhinaca iltizaamka sharciga ah iyo mas'alada alamru wannahyi dadka culimada ugu waaweyn ayuu ahaa waxyaabaha aadka loogu xasuusto waxaa ka mid ah sida uu u diyaariyey ummadda si u tarbiyeynayay iyo sidii uu ugu diyaariyey jiilkii xoreeyey sida la sheegay jiilkii soo saaray ama inuu soo saaray jiilkii xoreeyey bayt almaqdis
صلاح الدين الأيوبي oo garanaysaan ardiyadii lagu xoreeyay ciidankii xoreeyay dadka xoreeyay iskamayna imaanin dad waxay ahaayeen la soo tarbiyay dad waxay ahaayeen madraso uu ka bilaabay inuu furo madrasadaas in ay ruwaad ay wax ka bartaan oo xirtiisu wax ka barato kadibna ay adduunka ku intishaaraan ay aadaan ilaa la dhaho waxay gaadheen ilaa 400 oo madrasooyin ay ka furaan adduunka taasaa keentay maanta inaad meel walba ku aragto طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني ميل والبا inay joogto waxay ku timid nashrigaas madaaristaas islaamiga ee sunniga ee shaqeynayay ee meel walba ka shaqeynayay madrasadaas ragii ka soo baxay waa sida la sheegay waa zinki baa kamid ah marka culimadaas ka soo baxday iyo jiilkii ka soo baxay ayaa wuxuu u diyaarinayay asagu markii uu hadlayna uuba sheego wuxuu dhahay xarakadaas diinta cusboonaynaysa ee tajdiidiyada asagu runtii uu sameeyay oo iimaanka ka soo bilaabaysa dadka inay ka dhisto iyo akhlaaqda ayay ku timid in la furto Bayt al-Maqdis oo 90 sano ay haysteen nimankaas saliibiyiinta sidiisaba shicaarkiisu wuxuu ahaa qof waliba madhabkiisa haysto laakiin waxaan leenahay hal ujeedo saas waa qof waliba madhabkaaga hayso fiqiga laakiin hal ujeedaan leenahay halka ujeedo waxa waaye inaan ka xoreyno Quds saliibiyiinta sidaas marka loo sheegay ayay culimadii uu soo tarbiyay iyo madrasadan waxa lagu yaqaanaa inaysan ahayn madraso tacasub leh inay tahay madrasa sadrigeedu waasic yahay oo aqbalaysa dadka kaga bedelan dhinaca madaahibta inay aqbalayso aysan ahayn madraso ciriiri oo sida khawaarijta qofku hadduu bayga afkaar bedelan yahay waa gaal marka hal la dilo ama waa murtad inaysan aqoon waxaasna inay ka shaqeyn qof kasta oo raba inuu jiil diyaariyo muslim ah oo multazim ah oo ummadan wax tara oo hogaamiyana waxa laga maarmaanaa inuu dariiqadaas maro qof dadka kala qaybinaya oo ala madaahib u kala qaybinaya oo afkaar u kala qaybinaya oo kaas waxba nagama dhaxeeyo dhahaya masaajidkiiska iga celi waxba isumanihin isma aragno qof dhahaya oo muslimiinta un ka dhex shaqeynaya oo waliba ku intii culimada ahayd un ka dhex shaqeynayay ummad intuu ku tarbiyeeyo kuma midaynayo kuma hagayo meelna kuma geenayo dadku ka kala geenayo sidaa darteed culimadeena waxaan ugu baaqayaa meel kastoo joogaan inay manhajkaas isaga ah ay u ictimaadaan tarbiyada ay ummadda tarbiyeynayaan manhajka midnimada manhajka tasaamuxa manhajka jacaylka muslimiinta manhajka isu dulqaadashada iyo manhajkaas is-aqbalidda in la is-aqbalaa manhajkaasaan kaga dayanaynaa sheekheeni weynaa sheekh cabdilqaadir jilaani farxad bay markay tahay inaan sanadkii horena joogo sanadkana ka soo qayb galo berigii hore waxaan kula dardaarmo yidhi haddii ay culimmadu qayb ka mid yihi berigii hore ay ord idinku dhaafeen hadda waa la isla gartayee culimmada soo dhoweeye waxaan rajaynayaa inaad soo dhoweyseen oo aad dhammaan la isu wada imaaday oo meeshii la isugu wada imaaday oo waa kaan dhahanay maaragtay halkii aan ku dhammaynay aan ka bilaabayna inay xigmaddu ku timaado maanta sideedaba haddaynu nahay dadka muslimiinta ah duruufaha noocan oo kale ah markay soo baxaan dadkii ummadda hor kacayay ee dalka difaacayay
culimadeena ay ahaayeen culimada turuq suufiya ayay ahaayeen waa xaqiiqa legacygaas iyo turaadkaas ayagaa iska lahaa innaga Soomaaliya Sheekh Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheekh Barsane iyo Sheekh Baraawi iyo culimadii ku hebel ahaa ee la yaqiinay ee dalkan u soo jihaaday ee difaacay ee diiday in kufrigu wadankan uu dadkeena gaalaysiiyo waxay ahaayeen culimadeena culama as-suufiya ahaayeen haddii la aado wadanka Suudaan mahdigii baad u tagaysaa oo asna suufiyadii ah haddaad aado Sheekh Umar al-Mukhtar iyo mujaahidkii weynaa ee Liibiya sidoo kale ahaa haddaad sii socoto Jazaa'ir aado as-Sanusi baad u tagaysaa sidoo kale ahaa sidaas un bay ahayd dadkii culimada ahaa ee ummadan dalka muslimiinta soo difaacay ee soo ilaaliyay culimadeena ay ahaayeen sidaa darteed waxay ahayn mujaahidiin markii dalku halis galo hubka qaata kaliya aan wardiga iyo kutubta oo la akhriyo iyo dadka oo wax la baro kaliya kuma ekayn waa hawl wanaagsan laakiin markay timaado in loo baahdo in qori iyo seef la qaatana safka hore ay galayeen ayagana hogaaminay ummadda maba inoogu baxdana inagu haddaan nahay Soomaali cadow sidiisaba mar hadduu soo baxo waxa weeye asal waxa ah culimadu inay hor kacdo meelaan culimadu hor kicin wax weyn lagama qaban karo taa marka maanta waxaynu ognahay marka jihaadka iyo difaaca dalkeena iyo xoreyntiisa meeshii culimadeenu iyo khaasatan turuq suufiya meeshii ka joogeen hadday timaado marka loo yimaado diinta islaamka iyo barashadeeda iyo xifdinteeda iyo dhowrideeda guriga ugu dambeeya ee geela lagu dhaqdo ee baadiyaha ah looxa in inta geed laga qorto materialka xataa la isticmaalayo inuu noqdo local oo dadku ay sameeyaan oo deedna dadku intay isku tashadaan ayada oon diin dawlad lacag ku siinayn oon cid kale aynan ku wadin oo aan banaanka looga imaanayn oon daaci loo qorayn oo aan waxba la sameeynayn in inta sheekh halkan uu ka tago oo laga yaabo inuu dhowr iyo 20 sano dadkiisii ka maqnaado oo uu deedna diin soo xambaaro silac ku soo barto oo uu ku soo noqdo reerkoodii oo baadiye degan oo dugsi quraan u furo oo yiraahdo looxda hal la qoro oo yiraahdo midda khadka la gelinayo hal la qorto oo yiraahdo karbonta iyo waxaas khad laga dhigto oo deedna marka reerku guuray looxda la raro oo halka quraanka lagu soo dhigto oo dabka la shito oo habeenkii la soo kaco halkaas deedna diinta dadka lagu daba wada iyo xoolaha yaa sameeyay culimadeena sameysay culimo suufi iyo turuqda ayaga sameeyay yaa baray dadka in alif ba ta wax buu leeyahay korko hal le laba le saddex le af Soomaaligi in loogu tarjamo oo loo baro oo manhajiyadaas kulligeen aan ku soo baranno ilaa iyo hadda aynu sidii wadno oo aan keligeen leenahay yaa baray oo afskeena Soomaaliga inoogu tarjamay culimadan ay inoogu tarjamtay Sheekh Yusuf al-Kawnayn yaa kutubaha inoo akhriyay sida la sheegay oo dhammaan culimadii xataa saxwa islaamiga dhalay oo raximkooda ay ka soo baxeen yaa sameeyay yaa kutubta baray weligaaba sii wad yaa kitaab ku akhriyay haddaad dhahdo qofka hadda kuwa laga yaabo masheekha laga yaabo inuuba ugu naqdiska badan yahay haddaad tihaahdo ka warran wuxuu ku leeyahay kitaab hebel iyo naxwaha waxaan bartay waagii aan suufiga ahaa marka usuusha marka barashada diinta iyo tarbiyada mujtamaceena ma aha shay lagu muransan yahay malaha inay tahay mujtamaceena u yahay mujtamac ay soo tarbeeyeen diinta soo gaarsiiyeen ay ku hayeen ay ku ilaalinayeen culimada turuq as-suufiya
oo ay weliba ku ilaaliyeen cid isku haysata ma laha. wixii marka intaa ka soo haray waxaan oran karnaa waxyaabo inaga qaldamay waa jiraan oo ah markii aynu u furannay adduunkii ee dhallinyaradeenii ay jaamacadaha aadeen ee ay wax soo barteen ee ay madaahibtii kale arkeen ee ay dhaqamo kale un arkeen waxaad mooddaa inay saluugeen koodii hore oo dhinac kale loogu sheego oo la yidhi kaasi nooc malaha wuxuu ahaa nooc loo bixiyey khuraafo iyo wax uun la yidhi sax maaha. kutubaha qaarkood oo runtii xilliyo mucayana la qoray, siyaasaad mucayana lagu qoray, aragtiyo mucayana lagu qoray, dadkii soo akhriyey waxay la yimaadeen ayaga oo si u dagaalamaya. waxaan markaa awoodi weynay dawladdeennii jirtay iyo dawladday waxay ahayd inay habayso oo ay diiddo in mujtamacan sida uu u socday ahlu sunnaha ah, shaaficiga ah, mutadayinka ah, mutasaamixa ah, inay dawladdu diiddo in hab kale loo design gareeyo. laakiin lil'asaf dawladdii markaa jirtay aan diinta shaqaba ku lahayn sideedaba oo ay ahayd diintu shacabka uu iska wado, culimmadana say rabtaa iska yeesho. marka waxaa la sameeyey in mujtamacii marka la qaybiyo, in lagu duulo wadaadadii, in xataa aragti kale dhallinyarada laga tuso fiqu shaafici oo wadaadku hadduu minhaaj akhriyaba loo arkay inuusan sax ahayn. xataa aragti noocaasa soo baxday. aragtidaas marka waxay ahayd in dawladdu cilaaji adduunka o dhan bay cilaajisay. anuu Malaysia aan joogi jiray markii jaamacaadka islaamiga loo diray dhallinyaro badan oo ay soo noqdeen ayagoo madaahib kala xambaarsan oo ay bisinka siraysteen, dawladda Malaysia way diiday. shawaafic weeye waxay dhaheen soo shaaficigu diin saxa ma aha, haa soo madhab saxa ma aha, ahlu sunna wal jamaaca madhabkiisa ma aha, waay marka aan madhab kale ugu bedelaynaa. ma lama ogola madhabkaas hal qof oo sheekha oo madhab kale la imaan kara ma jiro. way diideen. maxaa jira mujtamacay qaybinaysaa, maxaan uga tegaynaa meel kale u aadaynaa? sheekh weyn haddaad tahay adugu oo aad isku filan tahay oo aad wax kala tarjiixsan karto, madhabkaad rabta hayso gurigaaga. laakiin markaad dadka u fadwoonayso, markaad masaajidka imaam ka tahay, eed shacabkan Soomaaliyeed aad hor taagan tahay, kay yaqaanaane aabbahoodii awoweyda ka soo gaadheen eed adna og tahay inuu saxsan yahay oo imaam shaafici ugu wad, meel kale hala aadin. marka waxaynu u baahannahay culimmadeennu inay ama saxwo ha ahaadaano ama culimmadeenna sharafta leh ee maanta halkan fadhida ahaadeene in uu u qoran yahay code of conduct waxay gaaladu dhahaan. yacni waxyaabo waxaa jira aan in la isku khilaafaba ahayn sideedaba. waana waxa sheekh cabdilqaadir jilaani uu ku guulaystay inuu marna ahaado xambali isla markaana uu ahaado shaafici. waa code of conduct inaad deedna uu yidhaahdo war dhegayso qof kastaayba madhabkaagi hayso, laakiin aan hal ku heshiino, hadaf aan yeelanno, hal hadaf hayna mideeyo. marka middaas horta culimmada runtii waad karaamaysan tihiin. taariikh dheer ayay culimmadeennu leeyihiin. waanan uga mahad celinaynaa intay dalkan ku soo ilaalinayeen ayagoon waxba lagu siinin saan sheegay, oo sheekhu kitaabka un akhriyo, mushahar ma qaato, ilaahay dartiisu u akhriyaa. shacabkiisaasuu la nool yahay, shacabkiisaa la nool yahay. marka taas runtii muhiim bay ahayd. annagu waxaan rabnaa inay dawladdeennu diinta ayadu gacanta ku hayso. waxaan rabnaa inaan ka ilaalinno diinta. ilaan qofka muslimka ah muxuu yahay shaqadiisu hadduu xaakim yahay? xiraasatu ddiin, siyaasatu dunyaa wa xiraasatu ddiin waaye.
marka diinta inaan ilaalino waajib min awjab alwaajibaat bay ka mid tahay yaan ka ilaalinaynaa number 1 hadda maanta khawaarijtan ka ilaalinaynaa marka caqiidadii ummadda in la ilaaliyo waa waajib yaa ku soo duulay khawaarij baa ku soo duushay diintii ummadda khawaarij baa ku soo duushay keeni yaa ku soo duulay oo baabi'inaya khawaarij baa ku soo duushay dalkeeni yaa ku soo duulay khawaarij baa ku soo duushay haddii aad rabto marka inaad diyaariso ummad wax iska tarta oo wax iska celisa oo micno yeelata marka ugu horeysa waxaa laga bilaabaa gudaheeda in la sifeeyo la hagaajiyo in la mideeyo caqiidadeeda la saxo ayada la isku toosiyo markaas kadib bay ummadaasi wax noqotaa wax iska celisaa intay khawaarijtu intay joogaan dadkeennu iyo dalkeennu micno ma yeelanayaan diinteennuna halis bay ku jirtaa marka culimada sharafta leh dareenkaas aad xambaarsan tihiin waa dareen saxa waa midka laydinku yimid ee idiin sheegay waxaan rabnaa marka in ay culimadeennu hogaamiso la dagaalanka nimankaas waxaan rabnaa in aad hogaamisaan waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan waxaan rabnaa in aynan istaagin sharaaradaas kacday ee uu madaxweyne xasan sheekh hogaaminayo inaad culimada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta cidda noolayn karta cidda ummaddan u sheegi karta ayaga weeye annagu haddii ay dowladdu ay dhinaca militarily aan ku dagaalanay haddii aan financially aan wax fara badan nimankaas aan kala dagaalanay dhaqaalihii dhinaca fikirka iyo caqiidada iyo maskaxda culimada iyo masaajidkay u taallaa marka habeen dhaweydna halkan aan ka sheegay ma ila habboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan dhowr boqol oo qof inaa intaa khadiib ka noqdo anoo sheekha maanta inaanan ummaddan dadka diintoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ku soo duulay inaanan waxbaba ka sheegin ani waxay la tahay inaysan habboonayn ama cabsi ha ii geyso ama dareen la-aan aanan dareensanaynba arrintaasi ha ii geysee arrintaasi muraajacay u baahan tahay arrintaas waxay u baahan tahay culimadeennu inay ka hadlaan oo culimadaas saa samaynaysa la hadlaan maalin dhaweyd waxaan u soo jeediyey culimadaasi hadday waxoogaa cabsidu ay ku yar badan tahay khayr allah siiye kuwa aan cabsanaynin oo ayagu ilaahay dartiis furimaha u taagan oo khudaba ay jirtay ha u banneeyaan ha ku soo dhoweeyaan kuwaas oo halkan fadhiya ayagaa dadka u khudbadayn ayagaana ilaahay aaminsan markuu ilaahay ugu talagalo inay dhimanayaan marka haddii uu sheekhu cabsado anigu maxaad u cabsatay odhan maayo laakiin ku geesiyaa joogee ha u banneeyo ha u khudbadeeyo dadka asagu ha u sheego intaas mar kale waan ku soo celinayaa manaba dhaafayno waa inaan ku celcelinaa runtii culimadeennana iyagoo mahadsan dareenkaas inaanu muujinaa horaan u sheegay culimada waxaan intaa ugu sheegayo waxaa weeye culimadu ulil amrigay ka mid yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha waadiicu arasuula wa ulil amri minkum ulil amriga maadaamay ka mid yihiin ulil amrigu mas-uuliyad buu hayaa mas-uuliyaddaas inuu qaadaa laga rabaa inuu fulay noqdo mas-uuliyaddiisa ka cabsadana sax maaha mas-uuliyadda aad qaadaysana waxay leedahay sacrifice tadxiya wax la dhaho inaad wax xurtay leedahay naftaa ugu horeysa marka baashaan haddiiba la sheegay qofkay nimankaasi dilaan inuu janno gelayo kii dilaana janno inuu gelayo meel ka fiican ay ku baxaysa anumaba garanayo marka cabsida aan iska saarno ummadeennana cabsida aan ka saarno min awjab alwaajibaat weeye maanta in shabaab lala diriro oo khawaarijta dalka laga saaro aad iyo aad ayaa runtii arrintaas ay muhiim u tahay waxaan rabaa inaanan intaas ka sii badaninoo waana kulaylna waa jiraa culimo aad u badanna way jirtaa waxaan rabaa laakiin inaan wax yar ka taabto maanta inkastoo xanuun badan ina haya innagana oo maalin walba dadkeena la laynayo oo la isku qarxinayo oo khawaarij ay dhibaato badan inagu hayso
haddana waxaa waajiba inaynaan halmaamin waxa ka jira Falastiin. nimankii uu ilaahay ku sheegay thumma qasat quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati wa ashaddu qaswa. aayadihii ilaahay ayaa tatajallaa fi Gaza ayadoo cad ayuu ilaahay inaga tusinayaa siday nimankaasi u qalbi adag yihiin iyo siday u naxariis daran yihiin iyo siday u akhlaaq xun yihiin iyo siday abnaa'ul qiradati wal khanaasiir u yihiin. ilaahay wuxuu inaga tusinayaa Gaza ayuu ilaahay inaga tusinayaa wax ay sameynayaan. shan iyo tobankii daqiiqaba hal canug baa dhinto oo Falastiiniya. kulli 15 daqiiqo oo kasta hal canug oo Falastiin ayaa dhinta. miyaad aragteen dawladihii waaweynaa ee human rightska iyo xuquuqul insaanka ilaalinayay ee in la isku xadgudbay ilaa diidayay ee Ukraine in ruush ku duula diidayay ee qof in lagu xadgudbo diidayay ee in dadku ay sinaayeen u dagaalamayay ee lahaa waa in la sinaadaa oo sinaanta say u sii wadeen oo ilaahayeen dadku xurriyadda u dadaalayay ilaa ay xurriyaddii la gashay. gabdhuhuna hays guursadaan ragguna hays guursadaan. nimankii ilaa heerkaas ay xurriyaddu la gashay meelay jiraan mid aragteen? waxay diyaar la yihiin oo ay madaxdoodu ku faraxsan yihiin, shucuubtooda odhan maayo, oo ay saf ugula jiraan oo ay ku taageersan yihiin in dadkaas masaakiinta ah iyo carruur iyo haween iyo odayaal iyo dad baaba'aya in korkooda lagu dumiyo inta la keeno nuclear hubkii adduunka ugu weynaa oo nuclear marka laga tago ee ugu fataagsana intii lala yimaado in korkooda lagu dumiyo hal mar ayadoo adduunku fiirinayo. waxay fiirsanayaan baabuurtii iscaafka ahayd ee ordaysay ee dadka dhaawaca ama dhiigga wuxuun tagaysay ayagoo soo socday in bam lagu dhufto. dhakhaatiirtii in la laayo, isbitaalkii in la duqeeyo, korontada in la gooyo, biyaha in la gooyo, in la yidhaahdo xataa hal kiish oo raashina looma geynayo, hal biyo-a looma geynayo. maanta halkaasay taagan tahay. away caalamkii, away dadkii xuquuqda ilaalin jiray bani aadamka, away kuwii carruurta u dagaalami jiray, away kuwii haweenka u dagaalami jiray, away xaggee aadeen? xaggee aadeen? ma jiraan maanta waxaas. intaa marka laga yimaado oo cadowga laga yimaado oo weliba la leeyahay waa lagu xadgudbay, kay Falastiiniyiintu dileen waa la dilay. malaayiinta ama kumanaanka dhimanaysa oo Falastiin oo hal mar la laynayana way dhinteenaa la dhahaa. saasay miidiyahoodu gashay ay geliyeen. wayna kala duwan yihiin, waa la dilay iyo wuu dhintay. Falastiini wuu muslimka ahi wuu dhintay. midka yahuudiga ah ee muctadiga ah ee ku soo duulay ee gurigoodii fadhiya ee 75 sano guumaysanayay kay dileenna waxa waaye waa la dilay miskiinka, waa lagu soo duulay, argagixisaa ku soo duushay. xamaas argagixiso maaha, waa urur xorayn oo xoraynaya dalkooda xoraynaya. waa waxay rabaan ha dhahaan, falyakun maa yakuun, ma dhegaysanayno wax kasta hadday dhahaan. intaa haddina laga jaray yeeli mayno. xamaas waa urur taxriir islaamiya sax ah, mujaahidiina waaye. cid aqbalaysa ma jiraan. waxaana la gaarsiiyey caalamul islaami, waxaa laga dhigay inta la isku diray oo khawaarij midan loo soo diray
oo qolo walba gudaheeda la isku mashquuliyey oo la cadaabay ayaa waxaana la gaarsiiyey in naloo fasira maanta sankana laga marmarinayo xamaas waa argagixiso dhaca waa dhac ma aqbalayno ma dhahayno heerkaasaan gaadhnay kuraastu ha tagto cumrigu ha tagto laakiin waxaan rabnaa inaan dhahno ma yeelayno aqbali mayno sida uu ilaahay ballan qaaday waan hubaa dhiigga ka daadanaya walaaladeen iyo dhibaatada lagu hayaay waa bidaayat taxriir bayt al-aqsa ama masjid al-aqsa maanta ayuu ugu dhow yahay bayt al-aqsa ama masjid al-aqsa inuu xoroobo maanta ugu dhow yahay aqbali mayno wax ka sokeeya wixii ugu yaraa oo ahaa xal dawlatayn oo laba dawladood in la aqbalo haddaaban kiyaanka yuhuudda u daynay inaan dawladnimo u aqbalno ma aqbalayno kamana tanaasulayno dawladda falastiin oo caasimadeedu tahay quds sharqiya weligeen ka tanaasuli mayno waa in dadka muslimiinta ahi ay walaaladan u duceeyaan dadkii ilaahay aqbali jiray waa kuwan u soo duceeya u tukada u duceeya in ilaahay walaaladan kaalmeeyo waan hubaa inay guulaysanayaan innaguna kuwan aan ka guulaysanaa waa isku mid khawaarijta iyo yuhuuddu waa isku nooc waa hal cadow way isku mid ah isku sibay wax u dilaan 800 qof ayaa sooba lagu dilay inta loo soo kaxaystay baabuurka inta aragteen la eg oo wax aad aragteen oo bira la soo saaray ayaa nuclear bomb wax la mid ah lagu dhuftay markaasaa 800 qof oo muslimiin ah oo Soomaaliya jidka la dhigay waxay Gaza ka sameeyaan iyo waxay Sooba ka sameeyeen waa mataano waay isku meel bay ka soo fuleen isku meel baa laga soo amray waxaana ka dhaxaysa inay yihiin labadooduba inay yihiin shayaatiin inay yihiin baa labadoodaba la hubaa sidaa darteed waxaan leenahay walaaladan ha guulaystaan ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha xoojiyo haddii ay waayeen walaalo u gurmada ilaahay baa u gurmanay maanta waxaan u tari karnaay waa inaan taageerno waana inaan u ducayno waana taageeraynaa waana inaan u ducayno annagana waxa waajib inagu ah oo taasi inaad taageeradan taageeranay ducadan u ducaynayno waa inay qayb ka noqotaa inaan kuwan inaga inala jooga inaan iska xoreyno uga aargudno waa isku mid waa walaalo waa in looga aargudo waaye marka waxaan leeyahay mar kale waan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo culimadana sharafta leh xuskan waxaanan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala in ilaahay ummadeenna mideeyo in ilaahay iimaanka inagu sugo in ilaahay muslimiinta u gargaaro mustadcafiintaas Gaza lagu leynaya dhinac kasta laga hareereeyay ilaahay asaga u gargaari kara ilaahay inuu gargaaro innagana ilaahay inuu ina dhaafiyo inaga xoreeyo inaga tirtiro inaga suuliyo khawaarijta dadkeenna oo culimadeena hogaaminayaan qulubteena Allah soo dumo aad iyo aad u mahadsantihiin wa barakallahu fiikum wa jazaakum Allahu khayr wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ra'iisul wasaaraha hal mar aan ku soo gootino sacab hal mar aan ku soo gootino